أول واحد قال المجري علومدي deegaanku waa iscafiyeen awal la horay wax uga dhaxeeyay ma jirin fadhiga aan ka kacno reer Bursalaxu fadhiga aan ka kacno nabadda aan u istaagno midnimada aan u istaagno in aan ka soo qayb galno kulankan in aan ka soo qayb galno Allahna kulansiiyay baan ku mahadinaa subhanahu wa ta'ala waxay ku saabsan tahay mawduucaygu taqwada Ilaahay subhanahu wa ta'ala in Ilaahay subhanahu wa ta'ala laga cabsado oo Ilaahay aan ka cabsano taqwadu sidaan ognahay culimadu waxay yiraaheen taqwadu taariifkeedu waxa weeye waa markii la soo koobo imtithaalu awaamirillah wajtinaabu nawaahi wa Ilaahay amarkiisa oo la fuliyo subhanahu wa ta'ala wixii Ilaahayna amray oo layna ka rabo waajibna ina ku ah iyo in laga fogaado wixii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ina ka nahiyay oo ina ka reebay waxa Ilaahayna amray wax allaala waxay doonaan ha noqdeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ina amrayaa subhanahu wa ta'ala ina la nimaadno taas baa waxay noqonaysaa taqwada kaligeeda ma sacabiso ummad aan isku duubnayn walaalayaal beel magaarayso rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam wuxuu yiri yadullahi ma'al jamaa'a ilaahay gargaarkiisu iyo kaalmadiisu ummadda wada socoto xaq ku midaysan ummadaas ilaahay siiya waxa laga yaabaa in badan inay yiraahdaan يعني ده نمحا واهيسنايو نبدغليه واهيسنا ولا ليال نبدغليه ما هيسنو hormar ma haysano waxa la rabaa tacliimta inaynu wadaagno khayraadka deegaankeena inaynu wadaagno wallahi baan qabiyaalid adduunkana waxba inaga anfacaynin aakhirana waxba inaga anfacay nabigeenu wuxuu yiri waa wax qurmuun ee ka fogaado yiri nabigeenu kaleey salaatu wasalaam cid nabigeena ka xigmad badnaydna ma jiro waxa ina kala geeyo deegaanka dumiyay oo qasaaraha ina gaarsiiyay waa anaga reehebala iyo anaga reehebala waxaynu kala bursanaynaa xasnimo darteed maal iyo hunguriga waxaynu maranayno kala bursanaynaa waxaynu kala bursanaynaa isku leynaynaa xil aad muddo yar oo kooban qof walba uu hayn doono xilku waxba inoo tarimayo hadii dadkii la xukumi lahaa ay baaba'ayaan oo halaagsamayaan ilaahay cuquubada maanta uu inagu riday oo abaarta ah oo nabadgelyo la'aanta ah oo cudurrada ah waa mid gacmaheena aynu ku kabsbanay weey waxaynu kaga baxaynaa waxaynu kaga baxaynaa dhamaanteen ilaahay inaynu u toobadkeeno subhanahu wa ta'ala waxaynu kaga baxaynaa dhamaanteen inaynu ilaahay inta u laabano iscafino waxaan kaga baxaynaa inta dhamaanteen isu nimaano oo halka istaagna ilaahay inaynu barino ilaahay waa rahiim waa ghafuurur rahiim ducada wuu aqbala allah hadaan niraana inteenaas oo culumo iyo waayeel iyo hooyooyin iyo dhalaan inta ka kooban ilaahay gacmaha hadaynu u taagano waxa aynu ka barino walaalayaal ma ka waayeyno aynu dib isugu noqono arinteenu arin aad u liidato weeye culumadii deegaanku waa iscafiyeen awal la horay wax uga dhaxeeyay ma jirin hadeerna waxay ku midaysan yihiin inay ummadooda xaq u sheegaan ummaddu intay isku khilaafsan tahay iyo intay isku midaysan tahay waxa badan ummaddu intay ku midaysan tahay taa in laga wada shaqeeyo deegaankeena taas waxa weeye wax tar u ah khilaaf siyaasi waxba inoo tirimayo khilaaf culimo waxba inoo tirimayo khilaaf dhaqan waxba inoo tirimayo aan ka qayb qaadano bulshadeenu siday u hormari lahayd oo tacliin u yeelan lahayd oo ummadaha caalamka ka jira iyo kuweena Puntland sida aynu ula tartami lahayn oo aqoon iyo nooc walba oo bani aadam ku hormaro aan ugu hormari lahayn taasa ilaahay raali inooga yahay taasana ilmaheena aynu uga tagno fadhiga aan ka kacno reer Bursalaxu fadhiga aan ka kacno nabadda aan u istaagno midnimada aan u istaagno annagoo ah culimada ku nool degmada Bursalax waxaan ugu baaqaynaa dhammaan bulshada iyo qabiilooyinka walaalaha ee xurguftu ka dhaxayso qodobadan in alle laga cabsado laguna dhaqmo diinta islaamka iyo shariicadiisa 2 in la ilaaliyo nabadda wada noolaanshaha iyo midnimada bulshada 3 in si degdeg ah loo joojiyo colaadaha iyo xurgufta lana qaato wadada nabadda iyo walaaltinimada 4 in la iscafiyo la isu tanaasulo lana iloobo wixii horay u dhacay ee sababay colaada iyo kala fogaanshaha 5 in dhalinyarada lagu baraarujiyo akhlaaqda wanaagsan lagana ilaaliyo wax kasta oo horseedi kara fitno iyo kala tag
lambar 6 in khilaafka lagu dhameeyo si waafaqsan shareecada islaamka iyo dhaqanka suuban 7 in qofkii geysta dil si waafaqsan shareecada islaamka loola xisaabtamo 8 in la sii xoojiyo dib u heshiisiinta bulshada gaar ahaan dhinacyadii ay colaadu dhex martay 9 in si dhow loola shaqeeyo maamulka degmada si loo xaqiijiyo nabad waarta amni iyo kala dambeyn 10 in laga fogaado wax kasta oo kicin kara fitna cusub ama dhaawici kara wadajirka bulshada 11 in degmada Bursaalax ay akhrisato jaamacyo qur'aan ah la geeyana tahliisha guri kasta dabcan qodobka u dambeeya aad ugu muhiim munaasaba halkan yani degmada waxa la waa la ilaystay hal qur'aan saaro marka in qur'aankaas la wada akhristo ayadoo si gaar gaar loo akhristo hadana in dhammaan bulshada ay wada akhrisato tabeelaha waxa ku qoran oo ah nabadgelyada guud ee degmada Bursaalax ayada lagu soo jeediyo ama si kale loo soo jeediyo dhammaan muraadkeenu tabeelaha waxa ku qoran way tabeelaha waxa ku qoran wuxuu noo filayaa dhamaanteen markaan sacfino ilaahayna noo naxariisanaya la sacfiyo laakiin saameynta maxay tahay hadda deerka qorshaysan iyo dhibaatooyinka dhacay maxay saameyn keeneen luminta nafaf badan oo labar u ahaa kow waa saameynta kubaad weey saameynta labaad waxa weeye barakac qoysas iyo bulsho oo deegaanka joogay oo ka barakacay meesha way ogtihiin saddex waxa weeye amni darro iyo xasilooni darro afar waxa weeye shan waxa weeye dhaqaale burbur iyo faqriga oo hoos u dhacay faqriga oo kor u kacay lix waxa weeye shaqo la'aan iyo muxuu ahaa hoos u dhac nololeed toddoba waxa weeye ganacsiga oo hoos u dhacay sideed waxa weeye maalgashigii oo yaraaday oo kuwii maalgashaday magaalada ay hadda walwal ku jiraan ilaahay waxaan ka baryayaa reer Bursaalax ilaahay maslaxad khayr qabta inuu dhex dhigo ilaahay waxaan ka baryay abaarta iyo colaada iyo sanifka ilaahay inuu ka qaado ilaahay waxaan ka baryay barwaaqadeedii iyo nabadeedii iyo magaalanimadeedii iyo sumaacadeedii ilaahay inuu soo cesho ilaahay saasa weydiinaya aamiin dhaha ilaahay saasa weydiinaya ilaahay oo sumaacadeedii noo soo celi ilaahu abaarta naga qaad ilaahu colka naga qaad ilaahu khilaafka naga qaad ilaahay oo buqdiga iyo xasanimada naga qaad ilaahay oo qalbiga isu soo jeedi ilaahu burcadi sumari aamin faatax hadalkii horta culimadii baa dhameysay anigu markaan soo galay oo isha wax marshay oo aan arkay garbihii culimadu inay dhan yihiin in ilaahay abaartii naga saaray oo colaadii naga saaray oo cudurkii naga saaray baa calooshayda gashay xaqiiq weeye waa xaqiiq kelmadaas xaqiiq weeye calooshayda waxaa gashay wixii lagu dhex jiray oo dhan inay baxeen ilaahay waxaan weydiisanaynaa wixii lagu dhex jiray oo dhan ilaahay inuu naga saaro ilaahay saasaan weydiisanaynaa gabdhuhu nabadana waxbay ku leeyihiin colaadina waxbay ku leeyihiin maanooyina waxaan ka codsanaynaa nabadda inaad qodob ka noqotaan kow inaad ka noqotaan nabadda saasaan horta gabdhaha ka codsanaya nabadda iyo horumarka waanu ka hadlayna waana taageersanahay ilaahay baa mahad iska leh waxaa la yidhi dadku waa tala keen iyo tala raac annagu inkastoo aanu gabdhanahay tala raac baan nahay wixii raggu noo soo jeediyo waa rijaaladayadii waa yeelaynaa markii horena waa u taagnayn nabadda iyo horumarkaan u taagnayn waa tashkiidinaynaa waa taageersanahay ilaahayna waa u baryaynaa haddii ilaahay noo keenay culimo wax akhrida oo wax garata oo Bursaalax isugu yeerto waa intay u baahnayd Bursaalax waa intay ka maqnayd Bursaalax Bursaalax waa istaqaanaa inta lagu ammaanayo maaha waxay ahayd meesha maanta gariigay joogtana wax la isla ogyahay weeye ilaahay waxaanu ka baryaynaa sharafteedii iyo quruxdeedii ilaahay inuu soo celiyo awal wax dagaal ma jirin hadda marka haddii allayno waa alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaanu soo jeedinaynaa nabadgelyaan soo jeedinaynaa halkan hoolkan waa markii labaad aan imaado
waxaas hool iyo nabadoonnimo iyo dhacaysa shaqo kuma lahayn waa markii labaad aan imaado waxa weeye marka hadda alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin alla barigaas iyo quraan akhriskaas waa ku dawoobaynaa waa alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin waa ku dawoobaynaa waxaan rabaa in culimada iyo maamulka aan ku taakiidiyo inaysan noqonin laab la kac maanta meesha laga akhriyay sidaasna looga tegay laakiin la soo celceliyo oo culimadu si joogtaan masaajida iyo meelaha madaarista iyo meelaha la isugu imaanayo ay u tagaan oo booqasho ugu tagaan oo dadka ay wax u sheegaan oo wacyigeliyaan innaguna aynu soo xaadirno mar walbana qalbigeenna iyo arwaaxdeenna iyo jimsigeennaba aynu geyno meeshan aynu tagno kuwii qaata khayrkana aynu noqonno kuna baraarujinno odayaasha deegaanka oo halkan hadda suldaanku uu ka hadlay waxaan rajaynayaa wixii hadda canaan ah waqti kale in la siiyay ku qurux badnaan lahayd laakiin sidii la rabay ugumay falgelin way ka seexdeen markii barnaamijkan aan bilaabaynay runtii aad buu u cuslaa dhibaatooyin badan baan ka dareennay dadka qaybtii ugu horreysay oo aan kala tashanay waxay nagu baraarujiyeen idinkoo aan idinku midoobin isku imaanin cid uma yeeri kadhaan taasina waxay noqotay arrin muhiima waxay sababtay inaan culimmadii u yeerno dhammaantood dadka in badanoo ka mida waxay islahaayeen suurtagal maahan laakiin ilaahay amarkiis markaa isku yimaadeen way isfahmeen ayaga laftigoodii baa ka garaabay inay arrin muhiima tahay markii aan gudagallay arrintii oo aan arrintii bilownay waxaa dhacday dadka qayb ka mida inay muddo dheer aysan xataa masaajidda gudahooda aysan la yaabaan ay fiirfiiriyaan masaajid misaan u dhisnaa ay dhahaan run ahaantii marka waa arrin la yaab leh intaa kadib waxaasoo dhan ahdaaftu wax ma ahayn inaan mataqaanaa culummada keliya isku keenno hadafkayagu wuxuu ahaa in deegaanka nabaddiisa iyo isku imaatinkiisa bay gogol xaar u ahayd waxaana sababtaan ugu kalifay oo intaa aan u samaynay oo intaasoo dhan u soo marnay in deegaankeennu uu nabad waarta helo dadku ay isku yimaadaan qofba qofka kale gacanta u qabsado ayna tusaale u noqoto culimmadoodii oo maanta wada jidha ayaguna ay ku daydaan laakiin waxbaa muuqda ifafaalaa muuqda oo runtii ifaalo wanaagsan ah oo bulshada dhexdeeda wixii ka jiray in laga mayro in loo diyaargaroobay ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu inoo aqbalo ducooyinkii halkaan laynoo ka duceeyeyna haddee quluub ahaan haddaynu niyad ahaan u qaadanno runtii waa la aqbalaya waa iscafinay waa laynoo duceeyey inteenna joogta iyo inteenna maqanba waxaa la rabaa marka maadaama loo diyaargaroobay in wax la qabto quluub ahaanna wax loo qabto ficil ahaanna wax loo qabto waxaa la rabaa labadiiba inaynu diyaargarowno marka ugu horeysa anigu waxaan leeyahay oo runtii aan adkaynayaa waxaa weeye dadka quluubta ha la nadiifiyo maxaa ka mid ah waxyaabaha jira oo runtii bursaalax ay caanka ku tahay xagga haddaa aadi waxaa lagu leeyahay iskuulkii ree hebel xagga haddaa aadi waxaa lagu leeyahay iskuulkii ree hebel xagga haddaa aadid iskuulkii ree hebel xagga haddaa aadid iskuulkii ree hebel dhibaatooyinka jiray ka mid tahay ilmihiiba waxaa lagu beerayaa waxa la yidhaha ree hebel ilmihii colaadii hoos baa looga soo beera hoos kor lagama baabi'in kara marka maadaama hooyooyinkii oo dhan hadda joogaan waxaan ka codsanayaa dadka deegaanka inay arrintaa joojiyaan